السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر وهذا شركة أسكنكم. وحنا رماتنا كجوابه سؤال مهم وأنت بدنا أرضه يسوي ديان حفيزنا يسوي كان أرضه وبسات كان كسر حريستنا يأت تيم كانوا يسوي ديانه أرضه دكتور سر كسر بحذي ولي محريسة كران جامعتها دلك تركيا على سقطان جامعتها دلك تركيا كلية وحي أقبلان أرضه سمستر كوبات لكن كوفيد 19 كسر باللاودي دولته وحي صحة جامعتها إن سمستر ككوبادي السمستر كلابات أرداد الديوان جلي كران ساس أود أرداد الديوان جلي سبيش أكتوبر كهر 10 دودي ويبلابن وهذا السمستر ككوباد أي نحبرتن كوجران لكن أرداد صوت هذا أو شهادة حل قدام بهالشيء أما جو أنسته حل قدام بإني حريستان ودن كتركيا ولي جانس أي حستان وزارد وحول رئيس جامعتها ديوان جلي تودا إلا أيو صدني كودا بشهر ديسمبر طبعا وجران جامعة بالله بشهر ديسمبر أما نحبرتن كبشهر ديسمبر ديوان جلي تحل دونه واجران sababtoo ah waxay ku xiran tahay kuliyada inta qof ee ka hartay ku xiran tahay 10 qof ka hartay 10 kaas qof ay xilli hore dhamaato dabcan kuliyadaas diiwaan gelinteedu xilli hore ay xirmee marka waxaan dhihi lahaa ardada dugsiga sare ka soo baxday ee u diyaar ah in ay wax ku bartaan sanad dugsiyeedkan dalka Turkiga ee rabo in jaamacadda bilaabaan semesterka February bilaabanayo in ay nala soo xiriiraan sida ugu dhaqsiyaha badan si hadda jaamacadooda loogu xareeyo oo aqbaladooda ay u helaan haddii wadanka ka baxsan yihiin ay fiisahooda ugu xareystaan bisha February ay u yimaadaan su'aal kale waxa jirta marka muhiim oo ah hadii aniga aan joogo wadanka banaankiisa fiisahana aan soo helay hadda ma imaan kara oo jaamacadaha ma iska diiwaan geli kara su'aashaas jawaabteedu waa maya dabcan diiwaan gelinta anaga ku sameey karno hadaan noo soo sheegto oo shirkadana aad ka xareysatay anaga ka caawi karno in lagu diiwaan geliyo oo aad arday jaamacadda ka tirsan aan noqoto kadibna jaamacadda lagu xiro laakiin adiga waxa wanaagsan ardayga fiisaha haysto inuu yimaado bisha December dhamaadkeeda ilaa iyo bilowga bisha January sababtan saas u leeyahana waxay tahay haddii hadda aad timaado oo fiisahaagu uu 90 days ka yar yahay jaamacaddu waxa laga yaabaa inaadan iqaamo helin sababtoo ah jaamacaddu hadda kuma siinayso warqadda ardaynimada kuma siinayso warqadda ardaynimada waxay ku siin doonaan semesterka labaad markuu bilowdo marka haddii hadda aad iska timaado fiisahaaga 30 beri ama 60 beri oo yahay jaamacaddan ay ka harsan tahay inay bilaabato 10 inay bilaawdaan 9 maalin ay ka harsan tahay inaad ku rafaado laga yaabaa oo iqaamo aad ku helin marka waxaan kugu talin lahaa haddii fiisaha aad soo heshay inaad wax yar wadankii soo joogto ilaa iyo laga gaarayo bisha December dhamaadkeedana aad timaado sidoo kale haddii aad u baahantahay islaada jaamacadda ama ka buuxsantaa ama kulliyadda ama ka buuxsantaana teamkeena la soo xiriir anaga ayaa ka caawinayno in jaamacadda laga diiwaan geliyo adiga oo maqan waa haddii jaamacaddaadu ay tahay jaamacad aqbalayso ardayga in la diiwaan geliyo asaga oo maqan dabcan way jiraan jaamacadda diidaayo saas awgeed teamka ayaaba ku sheegi doono midda laga diiwaan geli karo iyo midda aan laga diiwaan geli karin su'aasha saddexaad waxay tahay casharadu goorma ayay bilaaban doonaan casharadu waxay bilaaban doonaan jaamacadaha intooda badan 13 bisha February 2023 waa semesterka labaad xilliga uu bilaabanayo wuxuuna dhamaan doonaa bisha 6 2023 saas awgeed wali waxaan haysanaa xilliga diiwaan gelinta marka loo fiirsho waqti fiican ayaan haysanaa marka ardada diyaarka u ah ee dugsiga sare ka soo baxday ee diyaarka u ah inay jaamacadaha Turkiga dhigtaan waxaan leeyahay xafiisadeena ku soo dhawaada haddii aad ku nooshahay Ankara waxaad ku soo dhawaan kartaa xafiiskeena Kizilay haddii aad ku nooshahay Istanbulna waxaad noogu iman kartaa xafiiskeena Shirnabad ama waxaad ka soo wici kartaa xafiiskeena telefoonada shashada kaaga muuqdo sidoo kale magaalooyinka ugu waaweyn dalkeenana xafiisadeena way ku yaalaan iyo sidoo kale Afrika ayagana dhamaantood waxaad ka heli kartaa haddii aad gasho website-keena dhammaan xafiisadeena iyo halkay ku wada yaalaan waad ka heli doontaa intaas waxaan rabaa marka inaan uga gudbo ardada dugsiga sare ka soo baxday sidoo kale ardada masterka iyo PhD-ga ahna ayagana xareynta jaamacadahoodu waa uu socdaa ilaa iyo bisha February-na xareynta jaamacadaha masterka iyo PhD-ga waa ay socon doonaan oo ayaga sida jaamacadaha baashka oo kale 30 December ma xirmaayo marka haddii aad tahay arday master ama arday PhD ah oo hadda ka soo qalin jibiyay jaamacadda ama go'aansada hadda inuu Turkiga wax ku barto waan ku xarey karnaa semesterka labaad casharkaagana 13 February wixii ka dambeeyo jaamacadaada waad ka dhigan kartaa marka ayaga way nala soo xiriiri karaan dabcan ayaga waqtiga ay haystaan uu ka dheer yahay waqtiga ay haystaan ardada baashka saas awgeed haddii mar aad fiisa u baahan tahana waxa wanaagsan inaad xilli hore nala soo xiriirto oo xilli hore aqbaladaada qaadato kadibna saas aad fiisaha ku xareysto way fiisaha la soo ayada bil iyo ka badan qaadan karo marka gunaanadka waxaan leeyahay ardada baashka 30 December ayay u egtahay diiwaan gelintooda ilaa 31 December ayay u egtahay dabcan way jiraan jaamacada ka hormari karo saan hore u sheegay ardada masterkana diiwaan gelintoodu ilaa ay bisha February waa ay socotaa diiwaan gelinta muxuu ahaa masterka iyo PhD-gana jaamacadaha intooda badan waxay bilaaban doontaa bisha December wixii ka dambeeya waxaan dhamaantiin idinku sugaynaa xafiisadeena waxaan idin leenahay ku soo dhawaada shirkadda Asgurcom
xaraynta jaamacadaha Turkiga waa dhamaad la soo xiriir shirkadda askuni.com si aad degdeg u heshid aqbalaadaada. askuni.com waa caawiyaha ardayga.